kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona nisa oo xoojinaysa ciidanka garoonka aadan caday amarka wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo shaqeyn waayay Rooble oo waqtiga kan ku guuleystay qodobo muhiim ah balse qaar ku fashilmay gobolada Hiiraan iyo Gado oo guux cusub ka bilowday dagaalka dhinaca madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo hadda ka bilaabanay deegaanada maamulkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka ayaan daawadayaal warka janaalkeena runta wararka idinkugu soo gudbin doonaa. Haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka isla markaana wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. Aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya. nisa ayaa waqtiga kan xoojinaysa ciidanka garoonka aadan caday iyadoona amarkii wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu shaqeyn waayay. wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu bilowgay toddobaadkii hore ku amray hogaanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in ciidanka nisa laga saaro garoonka aadan caday ee Muqdisho. fariintaasi oo dad badani ku tilmaameen mid xasilooni darre xambaarsan ayaa la soo warinayaa in ugu dambeyn ay dhaqan geli weysay isla markaana garoonka aadan caday ciidamo fara badan halkaasi la geeyay. saraakiisha nisa ayaa waxay xaqiijiyeen in amarkaasi kadib ay hay'adda ciidan dheeraad ah ay geysay garoonka. ciidanka dheeraadka ah waxa ay ku sheegeen mid loogu talagalay in lagu adkeeyo ammaanka guud ee garoonka aadan caday. sidoo kale waxaa loo xoojinayaa amaradii iyo sidoo kale shaqada ciidanka nabad sugidda ee jooga wadooyinka soo galaya garoonka aadan caday sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay'adda nisa. dabagal aan sameynay waxa ka fulay amarkii ka soo baxay wasiirka amniga ayaan ku ogaanay in xukuumadda federaalka ay ka gaabsatay oo aysan ku adkeysan soo jeedintaasi. sababta ay xukuumadda uga dhuumatay dhaqangelinta amarkaasi waxaa lagu sheegay inay sabab u tahay in si toosa uga hor yimaado wakiilada iyo sidoo kale safiirada beesha caalamka ee degan daafaha garoonka aadan caday iyo maamulka diyaaradaha caalamiga ah ayaa yimid in Soomaaliya hadda go'aamada ay wasiiradooda ay gaaraan in natiijo la'aan uu kusoo gabagaboobo. tanina waxay u noqonaysaa Cabdullaahi Maxamed Nuur cawaaqib xumo aad u adag. wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta ayaa horey waxa uu sheegay in gebi ahaanba ciidamada nisa ee garoonka aadan caday ku sugan gebi ahaanba laga soo saaray. go-aanka Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa u muuqda mid hadda aanan waxba laga qabanin iyadoona wasiirka amniga dalka uu yahay. uma badna in Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ka shaleyn waayo inuu ka shaleeyo waqtiga kan amarkiisa garoonka aadan caday marka la eego sida uusan amarkiisa munaasab ugu ahayn xaaladda amniga dalka iyo sida dad badani uga soo horjeesanayaan. dagaalka u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxa uu noqonaysaa mid aad u adag iyadoona hana siyaasadeedka dalka qalqal xoogan waqtiga kan laga dareemayo. haddana bulshada Soomaaliyeed ayaa cabsi xoogan ka muujinaysa wax waliba oo dhibaatooyin ah waqtiga kan xaadirka ah ka jira magaalada tani caasimadda Muqdisho. qof walba ayaa la socota in ay wax waliba isbedeli karaan. Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu ku guuleystay qodobo muhiim ah iyadoo waqtiga kan uu u muuqanayo in uu aad qodobo kale qaarkood ugu fashilmay. kadib 7 cisho oo golaha wadatashiga qaran ay ku shirayeen Muqdisho ayaa waxay shalay galab ay soo saareen warmurtiyeed aad u micno badan isla markaana ay soo wada dhaweeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada. sida ku cad warmurtiyeedka golaha waxaa ra'iisul wasaare Rooble loo daayay qodobo muhiim ah oo la xiriira in bayaanka golaha aan lagu soo hadal qaadin qodobka quseeya isbedelka lagu sameynayo guddiga doorashooyinka heer federaal. waxay meesha ay ka saareen damicii garabka Farmaajo oo rajo ka qabay in sii hogaamiyaan guddiga iyadoona Rooble marnaba uusan magac weyn uuna ku dhaxlaanin guddiga doorashooyinka. haatan waxay ka dhigan tahay in ra'iisul wasaaraha uu ku adkaaday arinta guddiga oo hogaankooda uu shaqada ka eriyay talaabooyinka uu Rooble
ka qaaday guddiga ayaa waxaa ka dhashay habkii loo mari lahaa cabashooyinka kuraasta la boobay ee golaha shacabka. Si kastaba Rooble ayaa waayay oo ku guuldareystay qodobka la xiriira amniga dalka. 3 maalmood ee lasoo dhaafay golaha ayaa aada uga doodaya mas-uuliyadda amniga guud ee dalka, sida muuqatana wax guulo ah muusan kasoo hoynin. Ra-iisul wasaare Rooble uu doonayay inuu golaha oo dhinacyada kala duwan uu ka dhanacsiiyo sidii amniga guud ee dalka uu la wareegi lahaa, inkastoo golaha uusan awood u lahayn inuu Rooble uu ku wareejiyo mas-uuliyadda ammaanka guud ee qaranka. Haddana xubnaha qaar ayaa toos uga soo horjeestay, waxayna muujiyeen saameynta farmaajo uu ku dhex leeyahay dalka waqtigan xaadirka. Qodobkii ugu weynaa ee bayaanka ka soo baxay shirka waxa uu ahaa in Amisom ay sugto ammaanka madaxtooyada. Amisom waxaa kaloo ilaalin doontaa gebi ahaanba ciidamada farmaajo iyo Rooble oo laga cabsi qabo inay ku dhex dagaalamaan madaxtooyada Soomaaliya. Bayaanka ka soo baxay shirkii Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada laguma soo hadal qaadin sida laga yeelayo kuraasta la boobay ee doorashada ka dhacday Baydhabo, Dhuusamareeb, waxaana u muuqata in cabashada beelaha iyo sidoo kale siyaasiyiinta kuraasta dhag jalaq aan loo siin doonin oo horeyba looga sii socon doono. Tanina waxay u muuqanaysaa in weli aanan la xalin dhibaatooyinka horey loo sheegay. Kuraasta ugu daran ee habka loo marayo ee doorashooyinka ee buuqa dhalisay islamarkaana ee Rooble ku kaliftay in uu bedelo hogaanka guud ee guddiga doorashooyinka ayaa waxay u muuqanaysaa mid aada u adag. Sidoo kale kuraasta qaar waxaa ka mid ah Yaasiin Fari, Mahdi Guuleed iyo Xildhibaan Sareedo, waxaana haatan god dheer kusii dhacaya rajadii laga qabay in lagu noqdo doorashada kuraasta. Beelaha iska leh kuraastaasi iyo musharaxiin oo ku jira gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo loo diiday inay u tartamaan ama tale ay ku yeeshaan ayaa kuraastooda waxay tahay mid aada waqtigan u adkaanaysa. Heshiisyadii u dambeeyay ee golaha wadatashiga qaran ayay si la yaab leh u kala hadleen midowda musharaxiinta iyo sidoo kale habraacyada doorashada iyo qaabka waqti kasta loo mari karo doorashada Soomaaliya. Waxay sidoo kale ay si cad u sheegeen in doorashada Soomaaliya la dardargelin doono, islamarkaana cid kasta oo doorashada dhibaato ku ah tallaabo cad ay ka qaadi doonaan. Qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaana soo dhaweeyay go-aanka ay soo saareen midowda musharaxiinta iyo sidoo kale golaha wadatashiga qaran oo ku aadan xaaladaha kala duwan ee waqtigan dalka uu ka jiro. Dalka Soomaaliya ayaa waqti doorasho galay, inkastoo ay isqaqabsiga madaxda sare ee dalka weli aysan dhammaanin. Haddana waxaa beesha caalamku ay wadaa wadaxaajood lagu xalinayo wax waliba oo khilaaf ah oo ka dhex taagan Rooble iyo Farmaajo. Rooble iyo Farmaajo ayaa midba midka kale waxa uu doonayaa in uu isaga ugu tun weynaado awoodda guud ee dalka. Maase muuqato in qof walba oo qofka kale uu tanaasulayo. Waxaa 27 Diseembar dhacay afgembi la doonayay in gebi ahaanba awoodda dalka Farmaajo isaga gacanta uu u gasho, islamarkaana uu Rooble uu wax walba uu meesha uu ka saaro. Inkastoo aysan dhicin taasi, haddana waxaa cambaareeyay beesha caalamka oo sheegtay in ay taasi waqtigan Soomaaliya nasiib darre ay ku tahay. Dhibaato kasta oo Soomaaliya ka dhacdana ay dusha ay ka saareen Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Farmaajo ayaa culaysyo xoogan waqtigan xaadirka ah la kulmaya. Culaysadani ayaana waxay yihiin kuwa uu doonayay waqtigan in uu ka badbaado, inkastoo kooxdiisa ay laba garab u kala jabtay. Waxaa hadda kooxdiisa kusoo horay Cali Yara Cali iyo sidoo kale Farxaan Qaroole, Yaasiin Fari, halka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo tiimka kale aanan meelna lagu haynin, maadaama Fahad Yaasiin oo horey walaac uu kaga muujiyay xaaladaha kala duwan ee waqtigan Soomaaliya ee ku jirto, gaar ahaan go'aamada iyo sidoo kale isbedelada mararka qaarkood dhici kara. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu go'aan lama filaan ah uu qaatay oo ku aadan inuuna taageero cad u muujin doonin waqtigan xaadirka Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa rajada ugu wanaagsan uu lahaa waxa ay ahayd in mar walba wax kasta oo ku aadan isbedela ay u dhacaan. Hase ahaatee isbedela ma muuqato in dalka waqtigan ay ka dhici karaan.
haddana niyadjab weyn waxaa farmaajo ku riday shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey go-aamo cajiib ahna looga soo saaray kuwa oo go-aamadaasi farmaajo ku noqday kuwa uur ku taala. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelnayo waa nageynta. haddaba daawada haddii aad janaalkeena runta wararka ku cusub tahay janaalka subscribe noo saar wararkeenana like iyo share kii commentiga noogu dadaala. waad mahadsantihiin daawadayaal.